waxbarashada iyo si gaar ah ula hadlaysaa saakay waalidiinta, macallimiinta, maamulada dugsiyada iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Sida ka warqabtaan cudurka COVID-19 saameyn aad u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay, annagana kama duwanin. khaasatan bahda waxbarashada ee dalka Soomaaliya saameyn aad u ballaaran ayuu nagu yeeshay. waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo 20 cishaa ay xiran yihiin. ujeeddada iskuulaadku xirraayeen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba laga tawaashaysto oo sida takhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa uu horeeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo, muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aad loogu dadaalo. taas ayaa waxaa keentay bishii hadda la soo dhaafay 19keeda laga soo bilaabay in iskuulaadkii ay xirraayeen. waxaad la socotaan in aan ku jirno waqtigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhamaadka ahaa. marka hadday marsaa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabku ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay. sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu ee adduunka ku qaadanaysa, mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda iyadana waa dow. wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaasoo dhan muxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada, waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii 2019-2020 lasoo afjaro iyadoo lagu salaynayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horeeyey 19 Maarso sanadkan. arday walba wixii markaa qiimeyntii maalinta uu joogay in lagu qiimeeyo sanadka dambana loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedkii sanadkan 19-20 oo halkaa ku dhammaado. wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macallimiinta, maamulada dugsiyada iyo dalladaha ay bilaabaan maalinta beriya wixii ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii, laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd 19 bishii Maarso sanadkan. arday walba qiimihii markaa uu helay uu ugu gudbo sanadka soo socda haddii eebbe idmo sanad dugsiyeedka 20-21 ah. waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa imtixaankii shahaadiga ahaa, khaasatan dugsiga sare imtixaankii looga baxayay fasalka 12aad. wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay go'aamisay in aan ka sii dhur sugno muddo kooban kadibna go'aan kale laga gaaro. laakiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay berriba inay imtixaan qaadi karto. wasaaraddu waa diyaarsan tahay inay imtixaanka qaado, laakiin maadaama takhaatiirta iyo bahda caafimaadka ay ku adkaysanayaan in aan weli dad laysku keenin, wasaaraddu way hakinaysaa inta duruuftu kala caddaanayso. sidaa daraaddeed
wasaaraddu waxay soo jeedinaysaa in sida ugu dhaqsaha badan qiimayntii fasalka 12aad inta aan ahayn la bilaabo lana soo dejiyo natiijada sanad dugsiyeedkii 2019 2020 intaa waa go'aanka wasaaraddu ay gaartay la gaartay daladaha iyo maamul goboleedyada waxaa intaas dheer oo rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaasatan waalidiinta iyo maamul goboleedyada iyo cid walba oo kale ay khusayso in loo diyaar garoobo saameynta ballaaran oo ay cudurkan u yeeshay waxbarashada sida ka warqabtaan waxaan la dhaadacaynay oo aan runtii aad iyo aad ugu howlanayn kobcinta iyo kordhinta waxbarashada khaasatan ardayda guryaha joogto inay ku soo biiraan inta wax qorto ee wax barato taa dhaawac weyn ayaa gaari doono siyaabo kala duwan daraadeed marka uu horeyso wuxuu hakinayaa xawliga aan ku soconnay marka labaad waxaa hakad galayo fasaladii kordhayay maxaa yeelay inta aad la socotaan 86 ardayga Soomaaliyeed wuxuu wax ku dhex bartaa meel kira ah inta badan meelaha kirada waxaa bixiyo waalidiinta waalidkii haddii ardaygii loo soo celiyey waa garan kartaa waalidiintu haddaysan xilkas noqonin in ay dhici doonto inaysan bixin wixii ay bixin jireen mar haddaysan taas bixinna saameynta yeelanayso waxa weeye inay kiradii iskuulka la bixin macallinkii uu iska danaysto mar haddaan wax la siinaynin markaa markay jiradu dhammaato meel lagu soo noqdo la waayo oo awal cadadkii dhiganaya waxbarashadooda yaraa ay soo korodho kii rabay xitaa inuu wax barto meel uu wax ka barto inuu waayo runtii waa saameyn aad u weyn khatarteedana leh waxaan rabnaa macallimiinta maamulada iskuulaadka iyo daladaha iyo dawladda Soomaaliyeed oo wasaaradani matasho inay iska kaashadaan in dhibkaas la yareeyo baaqaas waxaan u soo jeedinaynaa bahda waxbarashada inta ka shaqeyso dhan in lagu foojignaado inay taa dhici karto saameynta ay kala yeelanayso waxa weeye in ardaygii uu hakad galo dabcan waa dadaalaynaa oo howlo badan oo kale oo aan hadda idinka warbixin doona ayaa jiri doona laakiin haddana marnaba wax lagu doorsanayo fasalka tegidiisa iyo macallinka iyo ardayga kulankooda wax lagu doorsanayo ma jiro saameyn weyn ayay yeelanaysaa macallinka qudhiisa saameyn weyn ku yeelanaysaa maxaa yeelay haddii meeshii uu quudka ka helayay qayla ka yeerto waxaa laga yaabaa macallinkii inuu danaysto oo qofkii macallinka shala ahaa oo maanta noqdo mid ama dhismo ka shaqeeyo ama meel waardiye ka ah ama meel karaani ka ah marka ama waxyaamaba oo waddanka iskaga tago marka saameyn weyn ay dhinaca macallimiinta iyo tayada macallinka ay ku yeelan doontaa arrintan hadday sii daba dheeraato waana habboontahay in lagu foojignaado maamulka iskoolaadka laftirkooda saameyn ku yeelanaysa maxaa yeelay iskoolkan inta badan iskoolaadka ardayda Soomaaliyeed maanta gacanta ku hayo si aan xendaab dawladeed ahayn oo aan maamul dawladeed ahayn ayaa lagu hayaa oo inta badan dhaqaalahoodu aad u yar yahay marka inay isbixi waayaan oo iswadi waayaan muddadan ayaa macquula waalidiinta qudhooda saameyn weyn ay ku yeelanaysaa maxaa yeelay nidaamkii ay ku tashan jireen oo ay ku tiirsanaayeen markuu khalkhal galo waxaa laga yaabaa inay caruurtii ay ka niyad jabaan oo guriga la iskugu soo wada aruuro iyadana laftirkeeda saameyn weyn ayay yeelanaysaa waxaasoo saameyna ayaa fooda nagu soo haayo
ummad Soomaaliyeed ahaan bahda waxbarashada ahaan waxaan maanta u baahannahay inaan isku tiirsanaano inaan wada tashanno inaan muxuu ahaa arintan sidaan dhibkan u yarayn lahayn inaan falkeeda galno annaga xukuumad ahaan qorshe weyn ayaa noo degsan waxaa hadda socdo howl aad u ballaaran oo aan rabno in ardayga loogu geeyo waxbarashada guriga maxaa yeelay waxbarashada waqtigii fasal lagu soo noqon doono ilaa hadda nooma muuqato marka ku talagal weyn oo ballaaran oo ku salaysan falsafadii ahayd khayr wax kaama dhibee shart u tooghay oo haddii hadda iskoolaadka lagu soo noqdo ilaahay aafadan dhinac noo dhaafiyo hadda waa waxaan rabnay laakiin hadday dhici weyso wixii la qaban lahaa ayaa hawsheeda ku tala jirnaa waxaan abuuraynaa nidaam ardayga haddii eebbe idmo lagu gaarsiin karo waxbarashadii guriga loogu gaarsiin karo haddii loo maraayo internetka haddii loo maraayo telefishinka haddii loo maraayo radioga iyo haddii intaa qofka aan haleeli karin qaab kale lagu gaarsiiyo aan u helaynaba laakiin wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda aan maantay wadanka u adeegto waxaa ka go'an in adeega muxuu ahaa waxbarashada aan gaarsiino guryaha dhexdooda inta dhibkan jiro sidoo kale waxaad la socotaan arday kalkaal barnaamij la yiraahdo inaan waxaynay oo ardada fasalka 12aad muraajaca loogu samaynayo si muxuu ahaa aqoonta maalmahan khalkhalka galay iyo baahinta looga diyaariyo barnaamijkaas muraajaca loo sameeyaa imtixaanaadkii hore looga dul shaqeeyaa internetkana waa lagala xiriiraa muxuu ahaa TV-gana waa lagala xiriiraa barnaamijkaas sanadkii hore ayaan tijaabinay waqti gaaban intii lagu tijaabiyey 80% imtixaanka waa baaseen marka waa barnaamij aan isleenahay waxgal weyn buu leeyahay oo hadda taabo qaaday oo shaqeeyo marka haddii ebeedmo muddo gaaban inta hadda lagu jiro fasaxa san dugsiyeedka iskuulku xiran yahay waxaan rajaynaynaa inaan dhammaystirno muddadaas dhexdeeda barnaamij guud oo fasal walba ah oo arday walbaba asoo gurigiisa joogo uu kala socon karo duruusta waxaa intaas dheer culimmada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada iyadoo matalayso bahda waxbarashada guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa in ilaah ka cabsiga la badiyo in ilaahay la baryo in ilaahay inuu waxaan dhinac noo dhaafiyo la baryo ilaahay cid baraysu waa ajiibaa taa in lagu dadaalo itaalka aan leenahay waan aragnay sida uu u yar yahay waxa kaliya looga bixi karo waa in alla ka cabsiga la badiyo ilaahayna la baryo intaa waa inta aan rabnay maantay inaan idla wadaagno haddaan nahay wasaaraddii waxbarashada haddii ilaahay yiraahdana waa idin soo wargelin doonaa mar walba